runtii waa wax jira meesha runtii waa arrimahan inta badan ka hadallo haddii aan saami iyo arrimaha jirana aan la daboolin waxyaalo kale iska iman kara marka waa arrimaha inta badan anagu focus ka saarayno waxa weeye in arrimahaas kulli waa laga wada hadlay dhowr goor meelo badan baa laga wada hadlay insha Allah wayna iman doontaa mar ay hawshaas sidii loogu talagalay ay u socoto runtii gudida ilaalinta hantida qaranku waa gudida kulli waa ka warqabtaan saxaafadda in badan baan wax naga weydiiseen waa gudi ballaaran runtii waa gudida kaliya ee soo martay 6 gobol adiga ilaa 13 gobol baa soo martay markaan sidaa u dhigo meel aanay wax ka soo aanay u kuurgelin oo aanay wax ka sababahan meesha u tagneen waxay ahayd wax badan baa laga faa'iiday oo wasaaradda maaliyaddu way hakisay miisaaniyaddii markaan warbixintii siinay oo in bal gobolada ay wax gaadhaan waayo waxa intii xukuumaddan kulmiye jirtay miisaaniyad si fiican baa loo soo shaxeeyay waa la soo habeeyay haddana miisaaniyaddii waxay noqotay waxaan ka baxayn caasimaddii dhaafeen oo marka la ansixiyo bis halkan laakiin hadda waxa la isla qaatay in goboladii wax la gaarsiiyo waayo waxa weeye haddii inta badan Afrika waxa caasimadda lagu soo ururaa laakiin waxaan rabnaa inay centralization maamul daadejin dhacdo oo gobolka markii loo tago isuduwaha gobolka uu qaabil karo dadkii wixii tiiniyada ee looga baahdana uu samayn karo marka arrimaha ugu muhiimsan taas ay ahayd shalay waxaan la kulanay wasiirkii arrimaha bulshada oo runtii wasiir aad u khibrad leh oo ahaa golihii hore ka mid ahaa marka su'aalihii ugu weyn aan isweydiin waxay ahayd qofka Soomaali leaderka shaqo uu halkan ka qaban karo inaan dibadaha looga keenin qof kale oo ama Kenyaati ajnabi taana oo isla qaadanay si fiican oo noola fahmay wasiirka kalluumaysiga oo kale waxaan ka wada hadalnay bal marxaladda hadda maanta waxa jira dalka Chad baynu wareeriyay inaga markaa maxaynu geyn karaa Itoobiya wax kaga bedelan karaa la dadka caalamka waxba isweydaarsadaan marka waxaan isla qaadnay bal in kalluunkeeni la tayeeyo si runtiina oo maalmihii dhaweydna xitaa seminar wax walba uu sameeyay waxaan leeyahay bal meesh marka tiraad wax lagu bedelo waa inaad waxeedii heli kartid bal sidee kalluun tayo leh oo tayo fiican leh loogu bedeli karaa baan isweydiinay marka waxaan soo qaadnay warshadii la asfaray oo ahayd warshadii hore ee Soomaaliya markaynu isku jirnay warshadii ugu qaalisanayd xagga kalluunka lagu meejeerin jiray in warshadaana bal kor loo soo qaado arrimaheeda dib loo eego marka mustaqbalka bal inaynu wax ku bedelan karno arrimahaas way arrimaha ugu badan ee inta badan aan ka wada hadalno wasiirada iyo wixii ay deegaaniyada iyaguna uga baahan yihiin maanta miisaaniyadiina ay golaha hortaalo wixii la isla eegi karo adigu anaga muhiimadeedu waxa weeye inuu qaranka kor loo soo qaado meel kasta la joogo